وقل رب زدني علما. شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بيت كان رب الله تضيع اللواتن وحكوليه نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد أليس لهذا محدث متصرف أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد بلى والذي بالحق أتقن صنعها بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد فضله ليس ينفد لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد فمن كان من غرس الإله أجابه وليس لمن ولى وأدبر مسعد إلا بيتك اللحية صدمات أيام كوكي سنين. قال المؤلف شيخ وحير رحمه الله تعالى نقر بأحوال القيامة كلها نقر وانقرينا معاشر أهل الحق وكعلي يدتك حق كسبنا نقر وانقرينا بأحوال القيامة قيامة حالات كذا انقرينا قيامة أحواشي هي حالات قيامة أي لا لهاي arrimaha kala duwan qiyaamada dhexdeeda dhacaya oo مثلا muxuu ahaa xisaabtii oo kale siraadkii oo kale jahannamadii jannadii oo kale istaagii ilaahay hortii 50,000 sano la hor istaagayay iyo wax alaale wixii la xiriiray soo bixi iyo axwaasha ku sugan waa qareena kulliha dhamaanteed وما اشتملته الدار حقا ونشهد يوما شيئا قرينا اشتملت أي قولان سنتين هم ماغاس الدار دارت هويغو دارت آخروي ألف والله تسعة سنة فالدار الآخرة خير مركا دارت آخره وحي أي قولان سنتين نوان قرينا حقا لبهانا أقرينا ونشهد وقرصنا وحي أي وما اشتملت الدار حقا ونشهد تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد تفكر كفكر أو إيك أو سيري أو أثير سوء بآثار العظيم عظيم كالله وين آثارتي سرادتك كفكر إلهي الله عظيمك من أسماء الله وهي عظيمة عظيمك وينها آثارتي سرادت كيسة علامات كيسة كفكر يوما الشيء كفكر حوت أي كلنستين ممالكه إلهي مملكديس ملكياشيس ممالك العظمى وين ممالكه العظمى ممالك تيسة وين جمع ممالكه العظمى لعلك ترشد لعلك واحد مضنتهي حداد كفت برتود ايكتو إلهي وينك بدن آثارتي سرارتك إلهي كتبي يعني سمدي هدار ايكتو سمدي أكثر من آثار الله واي يعني غاد إلهي كتبي وإلهي بكتسين عز وجل وسمدي وينك بدن حدي بحث محوها نجومتا كواكبتاس محوها دولكاس برتاس محوها آياتكاس حويان هدياد محوها قفك عقلك لا فيو شيء أو أركا وحاول تسنية
guri haddaad aragto si fiican u dhisan oo si fiican loo wanaajiyey oo aada loo qurxiyey oo muxuu ahaa waxay ku tusinaya qofkii gurigaa dhisay inuu yahay qof cilmi badan oo xigmad badan oo aqoon leh oo waxqabad leh ayaad garan laakiin haddaad aragto guri kale oo inkastoo lagu leeyahay waa guri cusub haddana biyuhuna soo daadiyo bilaabay biyo hoos kasoo gelayaan muxuu ahaa albaabkii kala fuqay derbigii dabaylu soo kala gelayso qayb dhamaba dhacdaba waxay ogaanaya qofkii dhisay inuusan ahayn muxuu ahaa raadkii qofkii dhisay uu ku tusinaya sida wax ka yihiin marka hadaad aragto meel xoola mareen neef geela xoolaa maray raadkii geelaad arkay meel baawur maray baawurka taayirkiisii baad arkay qof dad meelay mareen dadka cagahoodii baad arkay aahaartoodi marka haddaad koonka eegtid koonkii waa aathaarullah ilaahay aahaartiisii wey raadadkii ilaahay subxaana watacaala astaamihii ilaahay uu ka tegiyo way marka wuxuu lehay sheekhu tafakar ku feker biaathaari alcadiim cadiimka aahaartiisa ku feker iyo wamaa waxa xawad ay kulansatay mamaaligtiisu mamaalikuhu alcudma mamaaligtiisa weyn yani mamlakaadkiisa weyn waxyaabaha ilaahay leeyahay faraha badan eeg lacallaka waxaad mudan tahay oo dhacaysa tarshudu inaad hanuuntid markaas ay likay tarshudu inaad hanuuntid weliba adoo cilmi ku hanuuntay oon jahli ku hanuunin alam tara hada leyla id jaa mudliman facaqabahu jeyshu min asubxi yatrudu alam tara miyaadan arkin arrintii sheekh oo biaahaari alcadiimi ilaahayga weyn aahaartiisa iyo aayaadkiisa uu kugu koobo raba hadda inuu wax iyaga kamida ku kala dhigdhigo wuxuu yihi alam tara miyaadan arkin haadaa kan alleyla ah miyaadan arkin haada leyla habeenkan maadan arkin id xilli jaa uu yimid id xilli miyaadan arkin jaa uu yimid mudliman isagoo wax dulminaya isagoo wax mugdiyeynayo wax haraynayo mugdiyeynayo miyaadan arkin oo faacaqaba uu ka daba yimid hu habeenkii jeyshul ciidan oo min asubxi waa beri ah yadrudu oo cayrinaya faacaqabahu uu ka daba yimid habeenkii jeyshun ciidan oo min asubxi ah jeyshkaasoo waxa weeye yadrudu cayrinaya muxuu ahaa habeenkii cayrinaya yani habeen miyaadan arkin mugdi ah oo xataa aadan ujeedin gacantaada haddaad taagtid meeshaad cagta dhigay aadan arki karin mugdi ah meel walba waxaa ka daba imaanaa waxa uu ilaahay ka daba keeni ciidan oo waa beri ah oo iftiin ah oo habeenkii cayrinaya waa ka habeenkii mugdigii si cararaaya waa ujeeda waa fakanaya geedkii hooskiisi muxuu ahaa mugdigiyaa sii tegaya iftiinkiyaa imaanaya miyaadan arkin buu kuleeyahy sheekhu ta'amal biarjaa'i samaai jamiiciha ta'amal eeg waa u fiirso dhugo waa tafakartii oo kala wey shayga markaad aada u eegta leela marka kor intaad ka eegto oon iska gudubta maaha indhaha xataa markaad ka eegta maa waa markaad qalbiga ka eegto aada u ta'amushid haddaad doonto indhaha ku fiirin qalbiga aad ku fiiridid aada suuraysatid waxa weeye khalqigii ilaahay dhirtii iyo midabkeedii iyo muxuu ahaa kala duunaanshaheedii iyo qaabka ilaahay u abuuray kuwa waxa weeye jiifa kuwa taagtaagan kuwa muxuu ahaa laamaha badan leh kuwa halta laama leh kuwa muxuu ahaa midahoodu midabkaa leeyihiin dhadhankaa gooniya leeyihiin muxuu ahaa qaabkaa gooniya u baxaan cumrigaa gooniya ay baxaan waxaas midka dhirtii faraha ka badat mirihii faraha ka bateen oo xambaarila midka miruhu ku yaryihiin kaan mirahaba lahayn calaa kullin ta'amal eeg buu yidhi biarjaa'i samaai samada kooniheeda eeg hareeraheeda eeg jamiicaha dhammaanteed eeg kawaakibuha ay kawaakibu samaa samada kawaakibteedu xidigaheedu waqaadatun mid shidan wey holcaysa ololaysa mid ololaysa wey huraysa wey tataraddadu ee laablaabanayso xidigii muxuu ah olaayay waa laalaabanaho waa soo baxa waa dhaca waa soo baxa waa gudba waad ujeedaa saas wey bal ufiirsuu kuleeyahay samada kooneeda ufiirso weliba xidigaha eeg
سيئوه استيمه حدوه العيان شيخ وعوي أليس لهذا محدث متصرف أليس ميانو أهان لهذا كان ميانو أهان كون كاس السقع ميانو لهين أو سقناني محدث أي خالق من أهانسيي كدما كانوا أهين مد أبو ريو محدث كاسو متصرف كما معمولة ميانو لهين ميانو أسقناني كون كان محدث كاسو حكيم حكمة يحكم بله وحدونا حكمي والشيء ماشي كهبونانا وحكمي حكيم كاسو عليم علم بدن محدث كاسو عليم علم بدن كون كاسات سنة عدة دستي وقال إنه علم بدن يهي وعلم أباهن يهي صمدا بغير عمد ترونها صمدا إنه الكوريير تيرسنا عن إلهي سيدانا أي أول انتهي علمي أباهن إنه متابه وجد علمي أباهن عليم كاسو واحد أو كلي جيسة أو متفرد أو كليوبي إلهي واحد كون كان سيدان أويني كبدان سيدان أو نظامسا سيدان عجيبك هل مطلن هل معمولة كبدان متصرف كبدان هدو كون كمعمول لها هل كبدان أولهان لها هل كبدان وذاج لها وحدع لها إنه كون كيف سهاده عداس ولا ماموشا أنا إسكو سيو أودين وحال مربع الله كدي مركانا وفسهاد iyo ka dhaco marka maadaama koonkii uu nidaamsan isku dhinac u socdo wax iska hor imaan aan lahayn waxay tusinayaan cidda maamusha hal inuu yahay marka sheekha asaga ka jawaab wuxuu yiri balaha uu yiri yani koonkaanu muhdis buu leeyahay abuur uu leeyahay mutasarrif maamul uu leeyahay xakiim buu leeyahay عليم بوليه واحد بوليه متفرد مثل بوليه حق لك بلا ها وليه هاي والذي كيبان كدارته بالحق أتقن صنعها والذي كيبان كدارته أتقن وناجيه صنعها أي صنع وحوى صنع العالم عالم كان وناتيه سمينتي سوناتيه أي خلقه وناتيه بالحق حق كوناتيه إلهي حقهم كان كو أبوران كو دارتو له شيخ وأودع أودح جلي ها كونكي الأسرار سرعين جلي سر فربنا جلي سر فربنا جلي سر وح فربنا باكو قرصن كونكي أولا فهمي كده نفطي يا كميلة وأودعها الجلي الأسرار السرية لله تشهد ويقريسا لله إلهي بيقريسا سبحانه وتعالى بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد وأودعها جليي كونكي جلي الأسرار السريه جلي لله تشهد حالة تمد أقرأ لله إله أقرأ سبحانه وتعالى أقرأ تلمام على شيء وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد وفي الأرض آيات أي آيات باكسوا في الأرض دلكي خبر الهرمريو وفي الأرض دلكي وحكسوا آيات باكسوا دلكينا آيات وحلو عبرقات آيات كسوا يوسوية لمن عد بوسوية كانها موقنا من وحيقيننا يوحوبنا علم له مد علم له وحوى يقين سنة دلك انت ايجي محوها كنت أملي تفكري أو أصبحي دلك عجيب كها قيب كميل هو بد قيب كميل هو قيب هو بور قيب هو جد دلك قيب كميل هو جلود قيب هو عدان قيب هو مدو قيب هو ضب قيب هو بعاد قيب هو جوان قيب هو حركة صبحة دلك قيب هو سلب قيب هو دل عجيب واي قفك مرك إيجا iyo waxa dhulka dushiisa saaran ee makhluuqaadka ku wada nool bad iyo bariba dhulka wixii dul saaran dhirtiisi qofku markuu eego wax aayaad ba ugu sugan qofkii wax yaqiininayo wama tanfa'u shay'un wama maxay tanfa'u anfa'aysa al aayaadku maxay dalaalaadka iyo astaamaha iyo waxyaabaha cibro qaata maxay ku taraysaa man qofkii kaana aayad xad kii dafiraay qof dafiraayo xataa shaygi isagoo inuu xaq yahay haddana iska indha tiray maxay ku taree buu yiri sheekhu aayad muxuu ka faa'iiday waxba ka faa'iiday ma qof shay dafiraayo shaygi
waxuu ka faa'iidaa male. soomaalida qaarkood waa kuwa yidhaha kun daliil baan haystaa ka akrisan maaha ka adag saasuu ku leey wuu ku sheegi kun daliil haddaa akriso hataa waxba ka akrisan maayo ku leey marka qof aanba waxba ka akrisanin hataa kun daliil haddaa u keento hal daliil iska dhaaf qofka xaqdoonka hal daliila ku filan kun haddaad u keento xataa kaa yeeli maayo ku leey kaas marka maxay aayaad ku tare waxba ku tare may sheeko sheekhu ilay wa fi nafsi aayaatun wa fiiha cajaa'ibun biha yucrafu allahu alcadiim wayucbadu wa fi nafsi naftiina waxaa ku sugan aayaatun aayaad baa ku sugan iyadii naftiina aayaad baa ku sugan wa fiiha cajaa'ibun wa cajaa'ibun fiiha wa fiiha waxaa ku sugan naftii cajaa'ibun wax la yaab leh wax la yaabaa ku sugan naftii cajaa'ibu ayaa ku sugan cajaa'ibu ayaa ku sugan cajaa'ibu ayaa ku sugan fiiha cajaa'ibu ayib mafaacil waaye moogta siiratu muntaha aljumuuc biha yucrafu allahu alcadiimu wayucbadu biha ay bisababi nafsi naftii daraaddeed baa yucrafu lagu gartaa allahu allah alcadiim weyn oo wayucbadu laguna caabudaa yacni naftii baa ilaahay lagu gartaa laguna caabudaa sheekhu wuxuu yidhi laqad qaamat ilaayaatu tashhadu annahu ilaahun cadiimun fadluhu laysa yanfadu laqad xaqiiqdii qaamad way istaagtay alaayaatu aayaadkii astaamihii iyo calaamadihii mucjizooyinkii tashhadu xaalay tahay mid qiraydo annahu inuu isagu alle ilaahun yahay macbuud xaqa ilaahaasoo cadiimun weyn qiraysa fadluhu ilaahaas fadligiisu laysa maaha yanfadu mid dhammaana maaha ilaahayga dheeraadkiisa iyo nicmooyinkiisuna wax dhammaana maaha ujeeda wax dhammaanaya maaha oo waxa weeye dhulkii aada aragtay muxuu ahaa nolosha aan lahayn laga kala cararay dhirtii qallashay baaba'day burburtay hal geeda aanu ka taagnay dadkii ka kala carareen xoolihii ka kala carareen xayawaanka ka kala carareen wax habay yaraatay nololaho meesha ka jirin aanay jirin kulaylka iyo hafka ka baxaya qofka maraaka uu ku oomaayo musan ku dhex dhiman ba allah wuxuu keenaa caad buu abuuri biyo dhex gelin roobkuu ilaahay si naxariis usoo dejinaa waaye muddo yar kadib subaxiiba roobkii xala daaba subaxii waxaa la helayba waxaasoo xayawaan ahoo kala midab duwan oo haadhaadaya waxa dhawaq yeelay dhirtiyo dib usoo noolaanaysa maalin 2 maalin 3 maalin joog waxaa arkaya dhulkiioo cagaartay jebiga isbedelaba laa ilaaha ila allah dabaysha maxaa ka caraf badan maxaa dhawaqa ka fara badan dhirta kala midab duwana dhirtu kala cajiib badana waxa miro saaran fara badana waxa makhluuqaad yaacaayo oo qaar haagaya qaar socda qaar godad kasoo baxaya fara badana arzaaq waxa weeye halkii geedo moosaa waxaa saaran intaasoo moosaa saaran kii waxa weeye iskaba dhaaf waa cajiib waa aayaadka ilaah muddo kadib waa la cuni wixii xoolihii iyo dadkii baa cuni meeshidii ku noqon haddana ilaahay roob kaloo keena intii oo kale intii imise sano intaasoo sano ilaahay baa garanaya dhulku intuu jiray allahu aclam marka ilaahay fadligiisu laysa yanfadu ma dhamaanayo ma cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq ma dhamaanayo sheekhu wuxuu yidhi faman kaana min karsil ilaahi ajaabahu walaysa liman wallaa waadbara muscidi faman haddaba qofkii kaana ahaaday min karsil ilaahi macbuudka xaqaa abuurkiisa qofkii kamid ahaaday ajaaba waa ajiibaya hu ilaahay waa ajiiba walaysa uma sugnaanin liman cid uma sugnaanin wallaa jeesta oo waadbara daba jeediyo xaqii ka jeesta muscidu mid liibaanayo oo guulaysiinayo oo guulaysiiyo u ah ma jiro marka qofkii ilaahay qarsigiisa kamida yacni oo ilaahay uu khayr ku beeray wuu ajiibaya aayaadkaas wuu ajiibaya wuu yaqiininayaa asraartaas koonka ilaahay u markhaati kacayda subxaana uga markhaati kacaysan inuu yahay muxdis mutasarifun xakiimun caliimun waaxidun wuu ajiibaya qofkiisa jeesto dhegaha ka furaysta aayaadkaas sida nimanka yidhaahda waxaa waa iska dhacay waxaa iska dhaceen waxbaa qarxay bug hal maraa wax qarxeen waxaa la yaab kalaha kasoo baxay yidhahdeen waxaa la yidhaha big ban qarax baa mar dhacay haye qaraxi markuu dhacay koonkaas nidaamsanaa kasoo baxay haye
see waxaas ku dhacay see qarax wax nidaamsan soo usoo saara ya qarax wuxuu fasahaadiyaa la yaqaanaa iyo nidaam darre wax qarxay goormay wax wanaagsan oo isku toosan oo hagaagsan goormay ka soo baxan marka waa caqligii oo la tactiiliyey way caqligii yaani ka faa'iideynin ilaahay siiyey oo ku manaystay xujadana looga dhigay marka qofkii marka xaqii ka jeeso iska indhatira sheekh wuxuu leeyahay maaha muscid ma laha qof guulaysiinaya cid guulaysiinaya ma jirto nacam marka walaalayaal abyaadaas sheekhu wuxuu kaga warramay caqiidada ahlusunna waljamaaca ahlulxaqa ay kamid tahay nuqiru biaxwaali alqiyaamati kulliha wama ishtamalathu daaru xaqan wanashhadu waxaan qiraynaa qiyaamada xaalaadkeeda dhammaanteed iyo wixii qiyaamadu daartu hoygu ay kulansatay dhab ahaan waa qiraynaa waana ka markhaati kacayna tafakar biaahaari alcadiimi wamaxawad mamaaliku alcudma lacalaka tarshudu ku fekero yiri sheekhu oo fiirfiiri oo eeg allaha weyninka badan aahaartiisa eeg aayaadkiisa eeg iyo waxa mulkigiisa uu koobay mulkigiisa weyn waxa uu koobay si aad u hanuuntid marka haddii sheekh wuxuu noo sheegayaa qofka ilaahay aahaartiisa ku fekero aayaadkiisa ku fekera aayaadkii qur-aanka kariimka haddaad ku fekertid ma ujeeda subxaana allah qur-aankii kale aayaadkii sharciga haddaad ku fekertid aayaadkii kawniga haddaad ku fekertid waa hanuuniga kuleeyahy sheekhu sheekhu wuxuu yihi alam tara hada leyla id jaa mudliman facaqabahu jeyshu min asubxi yatulbu miyaadan arkin habeenkan marka uu yimaado isagoo mudlim ah sida xaalku yahay miyaad arkin kadibna uu ka daba yimaado ciidan waa beryahoo ceyrinaya habeenkii oo mugdigii iftiin u bedelaya ta'amal biarjaa'i samaai jamiiciha kawaakibuha waqaadatun tataraddad eegow yiri u fiirso ku feker oo ku tafakur samadan hareeraheeda kooniheeda samada dhammaanteed bal eeg ka koona eeg samadii xidigaheedii eeg xidigahaas holacaysa shidmaysa oo weliba waxa way taratadi laalaabanaysa alaysa lihada muxdithun mutasarifun xakiimun caliimun waaxidun mutafaridu adou ku weydiiyey mar haddaad eegtay samadii oo talada qaadatay adigu haddaba alaysa lihada muxdithun mutasarifun kaa koonkan miyaana u sugnaan oo aanu lahayn alla abuuray oo maamula oo xakiima oo caliima oo waaxida oo mutafarida haye ka jawaab balaa jawaab saasa iska noqon balaa haa waladii bilxaqi adqana suncaha waladii kii baan ku dhaartay adqana suncahaa wanaajiyey abuurkeeda samada abuurkeeda xaq ku wanaajiyey oon sudan iyo ciyaar iyo macno la-aan aan u wanaajina xaq iyo dhab ku wanaajiyey wa awdacaha alasraara sirtiina geliyey waxa weeye tashhadu lilah waxay uqiraysaa arrinkaasi ilahay uqira wuxuu sheekhu fi lardi aayaatu liman kana muuqinan dhulkiina waxaa ku sugan wax lagu waana qaato ciddii wax yaqiininaysa wamaa tanfacu alaayaatu man kana yajhadu aayaadse maxay ku tarayaan mucjizooyin ama aayaad dalaa-il iyo astaamo iyo calaamado wax lagu qaataa maxay ku tare qofkii wax dafiraya qofkii dafiraya ogoleynba diidanba waana fi nafsi aayaatu wa fiiha cajaa'ib naftiina waxaa ku sugan aayaad iyo waxyaaba lala yaabo biha yucraf allahu alcadiim wayubadu iyadaa lagu gartaa ilaahayo lagu caabudaa faman kaana min karsi ilaahi ajaabahu ilaahay kuwooda oo qarsiga khayrka ku beera qofkii kamid ahaade waa ajiiba aayaadkaas walaysa liman wallaa waadbara mascidu wallahu aclam wasala allahu wasalam wabaarak cala nabiyina muxamedin waalihi wasaxbi ajmaciin